Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan akhyaarta inagala socda janalka Reexaan Channel. Aada u mahadsantihiin, kusoo dhowaada barashada luqadda Ingilishka. Maantana waxaan idin haynaa topic ku saabsan reading, wax akhrinta. Mowduuc ku saabsan wax akhrinta ayaan halkan ka soo jeedi doonaa. Topic about reading. Reading is a very good habit that one needs to develop in life. Good books can inform you, enlighten you, and lead you in the right direction. Reading develops language skills and vocabulary. Reading books is also a way to relax and reduce stress. It is important to read a good book at least for a few minutes each day to stretch the brain muscles for healthy functioning. Books really are your best friends, as you can rely on them when you are bored, absent, depressed, lonely, or annoyed. Conclusion: it is very important to develop a good reading habit. We must all read on a daily basis for at least 30 minutes to enjoy the sweet fruits of a reading. It is a great pleasure to sit in quiet place and enjoy reading. Reading a good book is the most enjoyable experience one can have. Waa tahay aada u mahadsantihiin. Markaana waxaan u tarjumaynaa luqadda Ingiriishka inagoo mid ama eray u fasiri doona. Topic about reading waa mowduuc ku saabsan reading, wax akhrinta, wax in la akhriyo. Mowduuc ku saabsan reading is a very good habit. Wax akhrintu waa dhaqan aad u wanaagsan that one needs, taasoo qofku needs u baahan yahay to develop, inuu ku horumariyo in life, nolosha. Good books, buugagta wanaagsan, can inform you, waxay kuu tilmaamayaan ama ay kuu sheegayaan, enlighten you, ama ay ku iftiiminayaan, and lead you, ama ay ku horseedayaan in the right direction, jiho sax ah ama jiho toosan. Reading develops, reading wax akhrinta, develops waxay horumarisaa language skills, xirfadaha luqadda, and vocabulary iyo erayada. Reading books, akhrinta buugaagta, is also a way, sidoo kale waa wado ama dariiqad, to relax, aad ku nasanayso, and reduce, aadna ku yareynayso stress, walbahaarka ama walwalka. It is important, waxaa muhiim ah, to read, inaad akhriso a good book, buug wanaagsan, at least ugu yaraan for a few minutes, dhowr daqiiqo, each day, maalin walba, to stretch, saad u kala saarto ama u kala bixiso the brain muscles, murqaha maskaxda saa u kala saarto for healthy functioning, si shaqo caafimaad qab ah ay u qabtaan. Books, buugagta, really, xaqiiqdii, are your best friends, waa saaxiibadaada ugu wanaagsan, as you can rely on, oo aad isku halayn karto ama ku tiirsanaan karto them, ayaga, when you are bored, markaad tahay caajis, absent, ama aad tahay qof xanaaqsan, depressed, ama aad tahay qof niyad jabsan, lonely, ama aad tahay qof keligii ah ama cidlo ah, or annoyed, ama qof xanaaqsan. Conclusion, gabagabadii ama khulaasadii: it is very important, waxaa aad u muhiim ah to develop, in la horumariyo a good reading habit, dhaqanka wax akhrinta ee wanaagsan. We must all read, dhammaanteena waa inaan wax akhrinaa on daily, si joogta ah ama si maalinla ah basis, anigoo ku salaynayna ama sal uga dhigayna for at least ugu yaraan 30 minutes, 30 daqiiqo ugu yaraan, to enjoy, saan uga raaxaysano the sweet fruits, miraha macaan of a reading ee wax akhrinta ah. It is a great pleasure, aad bay farxad u tahay ama farxad ballaaran ayay tahay, to sit, inaad fadhiisato in quiet place, meel xasiloon oo degan, and enjoy, aadna ku raaxaysato reading wax akhrinta. Reading wax akhrinta a good book, book wanaagsan, reading a good book,
in la akhriyo buug wanaagsan is the most enjoyable experience. Waa khibrad raaxa leh, khibrad aad u raaxa leh. One can have qofkana uu lahaan karo ama uu yeelan karo. waa hagaag aad u mahadsantihiin topigeena ku saabsanaa ama mawduuceena ku saabsanaa wax akhrintana maanta halkaa ha inoo joogo. wixii aan qaldayna commentiga ayaad kusoo qori kartaan. idinkuna waad ku mahadsantihiin daawashada janalka Reexaan channel. subscribe sar gambaleelkana saar, gambaleelka idinkoo mahadsan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.